aniga 1992 dagaalkii sokeeye ee u dhaxeeyay Habargidir iyo Abgaal ayaa hoobiye ugu dhacay wuxuu ugu dhacay meesha la yiraahdo Banrama laamiga xabad ma ridaynin dagaal qabiil kuma jirin sababtoo ah nin Muqdisho ku dhashay oo wax bartaan ahaa garabka haddaan qori suri lahayna hooyaday waxay dhashay 4 bah aniga ma jarteena iga weyn anaa ku xigo Abgaal aan ahay mid kale igu xigo Abgaal waay gadabiirsiya noogu yar haddii aan goor qarabka gashto kan oo ma jarteenka maxuu leeyahay anaad ii qaadato walaalo yah kii gadabiirsin maxuu leeyahay haddii aan sii qaad isaaq awraad hore u baabi'isaan haddana waa nugu daraysaan marka dantaaba ii diidaba gabar aan adeer u ahay ee degmadan Wardhigley anigu Shangaaniyan joogaa waxa ay ugu dambeysay 2006 sababtoo ah meesha ay degan tahay meel wheelchair lagu tagi karo ma amba gaariga lagu tagi karo ha ahaato aniga cunug weyn oo mar walba aan adoomi karo ee aan dhihi karo waryaa ana aabahay wad maan dhalin oo ma ii joogo marka bulshadan ku dhex noolaa qofka bulshadaana haddii oo dalcadan boondeer ka saaro ee haddana uu ka soo saaro maalinta labaad oo ku dhibsanaya sidaas aawadeed waxay ii fududaysay in aan soo booqdo ubadka aan waalidka u ahaa isla mar ahaantaasina ku taamay goorba ayaad fursad u heli doontiin waalidkiina u tegayseen wadhawahay waxa aad iyo aad u mahadsan intii ka qayb qaadatay taakureenta aan mootadan ku helay dal ha joogaan dibadda ha joogaano iyo intii wax garad ahayd ee isku hawshay in ay sawirada shiish geergarayaan amba ay ugu xiraan bulsho cusub si ay u taam yeelaan hawsha dhalinyaradaasi ay soo abaabuleen dhammaantood waxaan leeyahay jazaakallaahu khayr